dadka ilaahay quraankan maqaamka uu ka gaarsiinay waxa weeye hal aayada dad ragii saadaadkii suufiyada ay waliba kamid ah oo ilaahay ahlul xaqiiqada ahay ma ahaynin maaratay dad quraanka iyo xadiista ee uun iska ag joogo hawlo kale iska wata sida bacdu naas ay fahmayaan waxay ahaayeen dad ilaahay uu baray daqaa'iqul culum oo baray oo quraanka macna fara badan ka fahamsan علومta hada sheekh mashaayikhda suufiyada kamida oo ragii hore ahay wuxuu fasirayay aayadan walladhi qaddara fahada walladhi akhraja walladhi qaddara fahada kaliya ayuu fasirayay waxa laga yaabaa dadka bacdu naas inay maartay mutacassibiin iska yihiin oo hada laakiin alxamdulillah waxa weeye anagu waxaan u tacasubaynaa waxay tahay dadka ahlul xaqa oo wanaasana u tacasubayna waana dadkii hadda anagu alxamdulillah ta'ala alxamdulillah Soomaaliya bacligeed ama aksarkeeduba wax badan ay ku abtirsadaan oo hadda waxa weeye duruqda suufiyada oo ka jirta Soomaaliya oo ahlul xaqiiqadahu ay ku abtirsadaan sheekhaas wuxuu ahay Sayyid Ahmed bin Idriiso ahay oo mufassir weyn ahay walladhi qaddara fahada ayuu saddex maalmood loo imay casarka salaada markii la dukado kutubadana kutubtiisa waa la haayaa ma ogtahay cilmiga iyo taariikhda waa la haayaa waxa anagu aan meerta iska abuura karna maahan hayla qofku waxa weeye wuxuu sheegayo inay meel ku tiirsan yihiin la rabaa saacoof culimada inuu ra'yi ka hadlo ma ahan oo asigu uu leeyahay ilaa inuu ra'yigaas kala waafaqi kara maahe marka asarka la iimaanayo markii la yimaado walladhi qaddara fahada bislahu fasiray marka hadii la soo noqdo qoraxda ka dhacaysa waa laga tagay hadana biriya la soo noqonay meeshii halka aayadu taagan yahay macnihii oo ku fasiray shalayne ilaa ma ku fasira hal xabo oo kale ka soo laabanayo macna cusub uu sheega saddex maalmood markii la joogay markaas ayaa maaratay waa la daalahay ma ogtahay inka soo dadkii macnaheedu ay ku sii socdaan markaas wuxuu dhahay maaratay nakhruju min al-bahri ila sahil oo dhahay badan ka baxayna oo dhahay markaas aan xeebta tagayna oo dhahay maxay quraanki waxa weeye bad waay ma ogtahay bad wuxuu ku shabahay waxa weeye quraanku bad waay haddana waxa laga yaabaa qaar inay yiraahdaan war suufigaas wuxuu ogaay u leeyahay waxa uusan ka aqoonin runtii suufigu waxa ogaay asaaba wax oga ka asaga kaliya runtii laakiin qof aan aqoon u lahayn dhibaatadiisa uu leeyahay moogta Soomaalidu waxa qaacida iska almaru aduun lima jahila qofku waxa weeye wuxuu ka jaahiliya cadow ku yahay mana fahmaayo waxa la rabaa horta marka hore waxa inaad fahamto oo ku dadaasho inaad fahamto marka hadda waxa way markaas marna wuxuu dhahay law waxa dhahay maaratay law qultu yow dhahay oo law fasirtu hadaan macnaha eraydi aan iska carabiyeyno ma labisa nuux maaratay fi qawmihi la qultu ayu dhahay la qultu ghayra alladhi fasirtu وعوراي معناه وحويه هدي أن مارت يا لو لبست يودا ما لبس قوم ما لبس نوح بقومه يودا نبي الله نوح انت وقوم كيس دح جوغي هدان فسر له والذي قدر فهدا معنى عصب له كين له يودا تاسيدنا وقيب كلامك روايه كلا وا لك اساس وحو اخراي وحو فسراي هذا وحويه صوفي وهي طريقه Soomaaliya taala ayaana loo nisba sheegtaa oo dad badan hadda alxamdulillah anaga naga mid ay u nisba sheegtaa inta kalena sidaas oo kala waay ee macnaha ma ahaynin sida bacdu naas ay u fahmayaan ana hadda idna aan ula jeedin laakiin in wax uu dadka la fahamsiiyay naga tahay sida bacdu naas ay wax u fahmayaan oo aan ayagu waxba xaqiiqo aan haysanin dadkaas oo wax laga sheegane waxa laga helaa suul khaatima laga helaya sababtoo qof sidaas oo ilaahay cinaayada ilaahay haysto saasa
haddaad maanta caayayso ama wax ka sheegayso dhibaatada iska leedahay waxa oo la ogyahana waa arintaas ilaahay naga koriyo inaan dadka saalixiinta ilaahay awliyadiisa inaan caayno waa nasiib darra ilaahay naga koriyo taas waa inaan ka gaabsana arintaas marka hada intaas oo maaratay usaas leeyahay intaas nabi nuuxna inta qoomkiisa ku leeyahay waa ogtiino waati ilaahay quraanka buu ku sheegay iska cadoo falabisa fiim 1000 sanatin illa 50 aaman faaqadahum dhufaan wa hum zalimun marka waxa weeye maaratay waxa uu ku nagay markaasi maaratay 1000 sano oo konton la waa 950 sano waa 950 sano oo markaasi intii uu ka dambeeyay bacda dhufaan uu joogane muddo uu joogay ay ku jirto iyo markii nabinimada loo soo bixinaayeen intaasna ay ka sii baxsan tahay waxa weeye intii nabinimada loo soo bixinaayeen waa ka baxsan tahay بعد ما قونكيسي لهلاغي انت وجوغنا waa ka baxsantahay inta markaasi dacwada u waday ayaa waxay tahay 950 sano ah ila naska quraanka ku cadeey moogtahay wax la iska cabirayo ma hadana sheekhan wuxuu leeyahay walladii qadara fahada hadaan fasiri lahay waana runtiisa ila waa la tijaabshay moogtahay anaga hal aayadana waxba ku istaagi karine hadii markaasi oo intaas oo maaratay oo mar walba uu keenayo macna cusub dadkii waa ka caajisayaan marka inuu saas ogiyo ilaahay cinaayada ilaahay oo qabo oo maaratay cinaayatullaahi aqnad an mudaacafatin min ad-duruu'i wa an 'alin wa an udum wa tawreemogtay al-busiri ahlul cinaayada ay ahayn dadkaas dad ilaahay culumta u furay ahaayeen dad wax laga sheega ma ahan dad waxa weeye lagu dayda loona duceeyo waaye oo waxa weeye badbaadada ummatul muhammad ayay markaasay kaalinta koobaad uga jiraan hadii fi zamanihim laga soo bilaabo qof walba waxa weeye casrigiisa uu joogo ayaa markaas wax ku yahay oo qof waa maaratay waxiidu zaman iska ah marka hadda qofkaas qof lamida ma jirin la leeyahay waxa weeye zamankiisa waa markii la fiirsho wax lamida waa ka wax ka cilmi badan wax ka karaamo badan ayaa ka horeeyay ama saka ama dhici karta hatta inay ka dambeeyaan hatta dhici karta hada ilaahi subhanahu wa ta'ala fadligiisu waa badan yahay marka dadkii sidaas ahay waxay naga mudan yihiin inaan u duceeyno inaanu i'tiraafno inaan dariiqoodii iyo suluugoodii aan ilaalino si maaragtay ummadu zamanka soo joogto maaragtay u badbaado waxa ardaa meeshaas aan ka soo tagno waxa weey waxa kale oo in cilmigiisu yaab lahay aayadan marka suuratul ahzab inal muslimiina wal muslimaat oo ilaahay inta soo muuminiinta uu ku sifeeyay rag iyo dumarba oo ilaahay uu ku dabamari aadallahu lahum maghfiratan wa ajran azima markii inta soo sifaada ay yeesheen ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay u diyaariyay maghfiro iyo ajr weyn ka soo jannadi ah ayadana waxa waaye 7 mujallad oo tafsiir ah ayaa laga qoray markaas laga qoray asoo fasiraay sheekhaas 7 mujallad laga qoray waa wax mudawan oo loogiye tafsiir oo 7 mujallad hadda maanta ma badneed inka soo waxa weeye ahlul cilmiga oo badan yahay hadana waa halkaas aayada ka warama marka in markaas dadkii ilaahay waxaas wax ka gaas waxa weeye ikhlaaska iyo wanaaga iyo maxabada rasuulka kaleey sallallahu alayhi wasallam nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam qabina wax uu fahmay ma jirto runta culumtana waa laga qarinaya wax uu fahmay ma jirto ayl albaab kidamaaba ka xiran bisaayidka hada albaabada diinta la ka xirto markaas waxa weeye taanka soo galayna guriga albaabkiisa ba haduu ka xiran waxaad ku furaysaa baadan haynin xagaa ka soo galaysaa marka taas oo kale intooda waxyaabaha keena qofka mahruumka ka dhiga waay oo aan markaas aysan ku helaynin dariiqi wanaagsanay iyo inay maaratay tarafuc ama se ilaahay darajadooda kor u qaado waxna ay fahmaan albaabka ka xiraaya waay marka de waxa weeye waxyaabo badan oo waxa weeye culumta xiraaya jirta iyo fahamka xiraaya jirta dadka saalixiinta oo laga hor yimaado ama danisu loo qaado
واتوا إلهي وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ظن السوء وددك أهل خير كالله ملايو هلا قال لك هلايا إيه إن محروم لنقضه هاي وظننتم ظن السوء بعد ما ليسان ملحن حكذا شمرك وكنتم قوما بورا يقول واحد نقطتين قون هلاك سماد نقطتين مركا ظنك سيداس هو أهل خير كالله ملايو أما سبب وحوي يقين بلغ دكتو waa lagu halaagsamaya culumtuna waxay ku noqonaysaa maxruum ay ku noqonaysaa ilaahay mahadiisa dadka Soomaaliyeed waa dad wanaagsan oo alxamdulillah suluugaas soo jiray dadkii ka soo shaqeeyay umadaanay soo gaarsiiyeen waxa weeye dhibaatada jirtana waxa iska jira oo hadda mar walba oo adduunyada imtixaankeeda waa ay leedahay daaru imtixaan iyo ibtilaa ila la yiraahdaa taas laga baxsan عجائب وانت السلام عليكم ما انت مش زين لا اله الا الله انت وجري قالوا ما جري ها ما كوا من هذا من قبر هذا ومدينه يا ابويا انت مولا ما